Ogeysiis guud ahaan dadweynaha ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo ereyadeeda waxaa lagu wargelinayaa in dhawaanahan si rasmi ah loogu daafuray xarunta dhexe ee cilaajka Darussaxa, kaasoo uu deegaanka ka hirgeliyay sheekha xaruntaasi ahna aasaasaha xarunta, Sheekh Maxamed Cabdi Sheekh Suudani ku magac dheer. In badan oo gobollada dalka Soomaaliya iyo dalka dibaddiisana ka soo shaqeeyay, isagoona kumanaan kun oo shacab Soomaaliyeed ku daweeyay kalaamka Alle iyo sunnaha Nabigeena, ayna u dheer tahay daba-dheeraadyada heerbalka ahi. Sheekh Suudani markii uu furayay xaruntan cusub ee ku taalla deegaanka ceelasha biyaha, gaar ahaan waddada aadda xaafadda Taagane dhabarka dambe ee iskuulka Garaama, ayuu ka soo laabtay Sheekh Suudani isla xaruntiisa kale ama faraca kale ee ku tiilay degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Inkastoo xarunta degmada Afgoye ay sii shaqaynayso, dadweynahana lasii liistigareynayo ama loo sii diiwaangelinayo, ayuu sheekha maalmahan ku sugnaan doonaa gudaha xarunta Darussaxa, xarunta ugu weyn noqon doonta aan iraade waa xaruntiisa dhexe deegaanka ceelasha biyaha. Sidaasi si la mid ah, sheekha isagoo ka fikiraya dadweynaha soo gaaraya xaruntiisa, waxa uu u sahlay qaybta daawada oo inta badan dadka daawooyinka loo qoro ay horay u sii maraan waddada laamiga geysa ama laamiga kaabiga ku haysa waddada weyn ee ceelasha ee isku xirta Muqdisho iyo Afgoye. Sheekha ayaa waxa uu farmasiga ama qaybta daawada ka hirgeliyay ama ka furay qol weyn oo kaabiga ku haya ama ka soo horjeeda masjidka Mubaaraka, oo isna kaabiga ku haya laamiga weyn ee ceelasha biyaha, waana dhabarka dambe ee shirkadda Hormuud Telecom. Farmasiga oo uu diyaar kugu yahay sheekha iyo howlwadeennadiisa uu ku carbiyay u adeegidda bulshada Soomaaliyeed. Dadweynaha reer ceelasha, xaruntan Darussaxa ayaa imaaneysa kadib markii dadyowga ku dhaqan reer ceelasha biyaha ay ku dhibtoodeen amaba ay baahiyahooda isa soo tareen ama baahiyahooda ku aadan arrimaha cilaajinta aad isku soo tareen. Sheekha waxa uu sidoo kale heegan kugu leeyahay amaba diyaar u yahay in uu sixirada ka soo saaro guryaha ay shayaadiintu reeraha Soomaaliyeed ama qoysaska Soomaaliyeed u geliyeen sixirada lagu dhibto, sixirada qaxarka iyo rafaadka geliya amaba isku diray qoysas badan oo Soomaaliyeed. Sheekh Suudani ma ahan markiisii ugu horeysay oo uu magaalo Soomaaliyeed ka hirgeliyo goob cilaajin ah, iyadoona ay ka sii horeysay xarumihiisa kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale degmada Afgoye. Haddaba wixii faahfaahin intaasi dheeri ah, Sheekh Maxamed Cabdi Sheekh Suudani, fadlan kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.